muxuu ka dhigan yahay dhawaaqa ka soo yeedhay guddida ururada ee ay ku sheegeen inuu dhammaaday muddadii dhaqangalka liisanka saddexda xisbi qaran xisbiya uu dhammaaday wakhtigoodu ma geli karaan doorasho madaxtooyo mase loo samayn karaa muddo kordhin waa tuma doorashada lagu gelayo diiwaangelinta maalin kadib ka bilaabmaysa Soomaaliland madaxweyne biixi oo wakhtigii la doortay dhammaaday dalka ma waxa uu ku sii xukumayaa sifo sharci darra jawaabaha su'aalahaas warbixinteena maanta ayaad ku maqli doontaa guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland waxay maanta si rasmi ah ugu dhawaaqday inuu dhammaaday wakhtigii sharciga ahaa ee xisbiyada qaranka oo maanta ku eka guddidu waxay ku amreen xisbiyada wakhtigoodu dhammaaday inay u hoggaansamaan waajibaadka ka dhalanaya dhicista liisankooda haddaba muxuu yahay waajibaadka ka dhalanaya ee guddidu fartay xisbiyada sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka xeer nambar 19/2020 iyo xeerka ururada iyo xisbiyada ee xeer nambar 14/2011 xisbiyadu waxa ay lumiyeen inay ka qayb galaan doorashooyinka soo socda ee madaxtooyada wakiilada iyo golayaasha deegaanka waxay maanta waayeen dhaqaalihii badnaa ee dawladdu siin jirtay bil walba waxa meesha ka baxay inay soo xulaan xubnaha komishanka doorashooyinka haddii la kala diro ama xubin ka midi bannaanaato ka hor doorashada ururada sidoo kale waxayna soo dhammaatay wakhtigii saddexda xisbi qaran oo keliya ahaayeen daneeyayaasha doorashooyinka islamarkaasna ay keligood fadhiisan jireen miiska lagaga arrinsanayo arrimaha doorashada xisbiya uu dhammaaday wakhtigoodii islamarkaana ay shahaadadu ka dhacday ma geli karaan doorashada madaxtooyada haddii lagu heshiiyo xeerka guud ee doorashooyinka xeer nambar 19/2020 waxa uu si toos ah u diidayaa in xisbiya uu ka dhacay liisanku ay galaan doorasho madaxtooyo sida ku cad qodobka 16aad farqadiisa 10aad oo sheegaysa in musharaxiintu u tartamaya doorashada madaxtooyadu ay yihiin kuwa ay soo sharaxeen xisbiya diiwaan gashan oo ansaxsan qodobkani waxa uu meesha ka saarayaa in xisbiya ansixintoodii dhacday ay galaan doorasho madaxtooyo dad badani waxay isweydiinayaan waa tuma doorashada lagu gelayo diiwaangelinta codbixiyayaasha ee dalka ka bilaabmaysa 18 bisha dhawaaqa guddiga ururada oo lagu socodsiiyey komishanka doorashooyinka qaranku waxa uu sidaa ku waajibinayaa in la aado doorashadii ururada ka hor intaan laga wada hadalta madaxtooyada waxa uu meesha ka saarayaa ogolaanshihii xisbiyadu haysteen inay ka doodaan kala horraynta doorashooyinka qodobka labaad ee caddayn u ah diiwaangelintan inay tahay tii ururadu waa isla xeerkan oo dhigaya in codbixiyayaasha la diiwaangeliyo doorasho kasta 6 bilood ka hor haddaba ma dhacaysaa 6 bilood kadib doorasho madaxtooyo maadaama aanay jirin xisbiyo haysta shahaadadii ay ku geli lahaayeen guurtiduna ay samaysay muddo kordhin 2 sano ah su'aalaha kale la isweydiinaya waxaa ka mid ah maadaama madaxweyne biixi uu dhammaaday muddo xileedkiisii ma waxa uu dalka ku sii xukumayaa sifo sharci darra ugu horrayn muddo kordhintu waa qodob dastuuriya taasoo ka dhigaysa wax sharciya golaha guurtida ayuu dastuurku awood u siiyaa inay muddo kordhin u sameeyaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa haddii doorashadu qabsoomi weydo hore waxay muddo kordhin la midata ay biixi u sameeyeen madaxweyne cigaal daahir riyaale iyo axmed siilaanyo si la mid ah midda ay u sameeyeen muuse biixi inkastoo ay tahay caado ku xun nidaamka doorashooyinka haddana waa wax sharci ah oo uu dhigayo dastuurka ummaddu dhigatay madaxweynaha marka muddadiisu dhammaato haddii ay dhici weydo doorasho waxa waajibaya muddo kordhin halka shuruucda dalku aanay ogolayn in muddo kordhin loo sameeyo haddii ruqsaddu ka dhacdo xisbiyada qaranka uuna waajibayo doorasho ururo Soomaaliland waxay wakhtigan u jahaysatay doorasho ururo oo ay bulshadu ku soo cuganayso 3 xisbi qaran wax la sugaabo waa go'aanka ku dhawaaqista maalinta doorashada ururada ee komishanka doorashooyinku soo saaraan iyagoo tixraacaya bayaanka maanta ee guddida ururada go'aankan ayaa la filayaa in komishanku ku dhawaaqaan kadib diiwaangelinta codbixiyayaasha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed